taas markaanu u sheegnay waxaan kaloo kala hadalay laba arrimood waxay ahayd xiriirka aan u goynay dalka jamhuuriyadda Guinea sababtaan ugu goynay iyo sida aan jecelahay beesha caalamku inay hadda ka bacdi arrimaha Soomaaliya ula dhaqanto waxaan kaloo uga waramay ra'iisul wasaaraha kulankiisii socdaalkiisa iyo kulamadiisii gobolka ama dowlad goboleedka Galmudug iyo guulaha laga soo hoyay labada arrimood ayaan maanta kulankayo ku saabsanaa diblomaasiyiintii aanu la kulanay arrinta xiriirkan u jaray jamhuuriyadda Guinea waxaan ku niri wuxuu ku saabsan yahay waxaa keenay Guinea oo ixtiraam daraysay oo meel uga dhacday qarannimadayada midnimadayada iyo wadajirka ummadayadana khatar gelisay khaladka ay sameeyeen reer Guinea ma aha oo kaliya inay qarannimadii Soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah oo caqabad ku yahay inay dib u dhac ku sameyso dib u heshiisiinta Soomaaliya iyo soo ururinta dadka Soomaaliya haddii dadka Soomaaliyeed aan la siinin waqti iyagu ku wada hadlaan tusaale haddaan soo qaadano Somaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee Soomaaliya hadday iyaga Soomaali isla iyaga Sudan iyaga anaga hal dad ah khayr baanu la jecelahay walaalaha Somaliland inta goosashada rabta iyo dadka Soomaaliyeed dhan meel ay joogaan laakiin annaga inoo taala sidaan u heshiinahay dal kale oo dibad iyo xooga kale nooma goyn karaan sidaanu u jiri lahayn marka markasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamkayagii iyo maaragtay wada hadalladayadii maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad Somaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas sharciyada adduunka oo dhan iyo go'aamada adduunka oo dhan UN-ta AU-da dalalka islaamka carabta IGAD kulligood waxay qiraan Soomaaliya inay tahay hal dal iyo hal dad oo mid ah marka adduunku saasuu qabaa saasayna tahay adduunkuna inuu sidaas dalalka qaarkood inay tixgeli ixtiraamaan weeye go'aamada adduunka ay qaybta ka yihiin wixii khilaaf jira Soomaalida iyaga dhexdooda inay ka wada hadlaan weeye dowladda Soomaaliya xukuumadda Soomaaliyana sida xukuumadii hore diyaar bay u tahay inay walaalahood Somaliland la hadasho la fariisato la heshiiso la isfahmo laakiin dal kaleeto inuu noo carqaladeeyo dib noo abuuro kama yeelayno waxaan u sheegay inaan Guinea ka yeelayn waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qayb Soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baac mushtar mid ganacsi ama wax mid kale oo siyaasadaha ahaade in ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qayb ka tahay ay og tahay oo iyada
lagala soo xiriiro. Waxaan u sheegnay arrintaas inay tahay mabda aan ku xirayn xukuumadda markaa jirta. madaxda xukuumadaha Soomaaliya waa isbebedelaan. shalay madaxweyne ra'iisul wasaare kala jiray, maanta madaxweyne ra'iisul wasaare kala baa jira. berito qof kasta oo Soomaaliya madax noqon kara, qof kale oo Soomaaliya oo Somaliland jooga madax noqon kara, qof Jubbaland jooga noqon kara, qof Galmudug jooga noqon kara, qof meel kale oo Soomaaliya jooga noqon kara. marka mabda'a ah qarannimada Soomaaliya, midnimada Soomaaliya in la ilaaliyo waa mabda' guud oo aan ku xirayn xukuumadda markaa joogta. sidaas aan u fahamsiinay oo ugu sheegay. waxaan kaloo u sheegnay inay jiraan khatar iyo olole khatar gelin kara midnimada Soomaaliya oo socda. waxaan u sheegnay in maaragtay ololaha socda ay ka mid yihiin dalal la yaqaano. sidaa daraaddeed waxaanu codsannay in ay adduunka naga kaalmeeyaan inay u sheegaan dalalka adduunka inay ka daayaan Soomaaliya dhibta iyo maaragtay maxaa la yiraahdaa lugooyada iyo lug qabashada iyo lug jiidida. taas waa midda ku saabsan xiriirkan u jaray maxaa la yiraahdaa jamhuuriyadda Guinea, sababtaan ugu jaray iyo sida aanu jeclaan lahayn in dunida Soomaaliya ula dhaqmo. طبعا arrimo kaftanaan ugu dhaxdaray waxaan u sheegay in aan kamid labadii bari la soo dhaafay su'aalo badan la weydiinayay oo maaragtay dooda aan ka qayb galay. shalay ugu dambeysay dood BBC du leedahay oo la yiraahdo dooda Jimcaha aan ka qayb galay. waxaa ku jiray wasiir Somaliland iyo nin kale oo yiri waxaan ahay khabiir arrimaha Soomaaliya ayaa igala qayb galay doodaas. marka idan kale waxaa laga yaabaa inaad su'aalahaas weydiin doontaan. qolyaha hadda halkan u jeedana waa ay weydiiyeen, mar hore waan ka jawaabay. Soomaalidu laakiin mararka qaarkood isma maqasho. marka waa idin ku celinayaa su'aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa Soomaaliya ma la leedahay diplomatic relationship, xiriir diblomaasiyadeed si ay ugu jarto Guinea. marka waxaan kaloo arkayay niman wasiiro sheeganaya, madax sheeganaya ama khubaro sheeganaya oo iyaguna dhahayay su'aalahaas oo kale isweydiinayay